hadda waxaan joognaa iskuulkii beeraha marka oo caan ku ahaa dhalinyarta inay aqoonta beeraha baraan oo practical la xitaa siiyaan sidii beeraha ka shaqeeyaan oo aqoontooda ficil ku sameeyaan hadda waxay la joogaa ustaad Yusuf ustaad Cabdiraxmaan Yuusuf ustaad Yusuf iyo ustaad Cabdiraxmaan Yuusuf soo dhawaada waxa ay ku tiri xaggan waa qaybta practicalka dhalinyarta hadda lagu baro waxaynu information aan la wadaagi kartaa oo sheegi kartaa waxyaabaha lagu baro dhalinyarta xaggan ما شاء الله سيدا شكاي ولا ما حسنتها اسكولكا واغي هور وحو لها قيب براتيكا لو ادي جري بيرها meel la yiraahdo kaytoy oo ardayga loogu tirigalay shanta bil dambe inuu practical ku qaato ayadoo la barayo noocyihii dalagyadii iyo goorta la soo saarayo iyo output la soo saarayo intaba ardaygu markuu fieldiga joogo wixii theory loo baraa oo si yani 10 weey laakiin shanta bil dambe oo beeraha la geynayo waxa loo tirigalay in wixii practical ahaan uu soo qaato qayb waxbarashada kamid ay ahayd laakiin hadda waagaas waa laga soo gudbiyo sababo jira awdeed lama aado beerihii oo practically ardayda looma wado laakiin halkaana waxa loo qaawiyay ardayda in qaybtii practicada lagu tuso noocyihii dalagyada kala duwana qaar waxa way nursery ay ku jiraan shubahana halkaan u diyaarsan yihiin in lagu tuso ardayda qaarkood weligooda beer waxba kama yaqaanaan noocyada dalagyada ma arkin way weydiinayaan macalin dalagaas yaayada maxaa la yiraahdaa qudaartu ansalaatado kale ma yaqaano geed yar miya geed weyn miya ma yaqaano dan waxa noo suurta gashay marka baloodkan yar inaan u haweyno dhirkiisu waa 25 balaciis waxa way 7 mitir waa cabirnay marka waxaan u taragalnay ardayda inaan practical ku siino noocyaha kala duwan dalaga marka mustaqbalka waa rajaynaynaa goolka iskuulku fog yahay in yani shantii bil dambe oo full education ardaygu uu helo in meeshii ay noo noqoto xaruntii practical insha Allah إن شاء الله مهمة ده وحوينا حتى درجة إني practical هلان أودنك حتى اسمه صونان كرا food security هلو وهي حالات الدلك الله الصعراء أبارة مركي دعرو بيش عالم كانوا الجمن ولان كرو تذكي بيرهنا وحيو بهني يكون إني وحي سوشيال قيستين إني سوق كاني كران ومد دور الفائدة كران لفت رحت الفائدة كران مركا مهمة سكول كانوا ليه هو أساس هنا شرفتي سيو تاريخي صور للسوق عليه ولا مالقليه آدي مهم متاعي ما هو مركز كلياته مهم معها سومالي ودني مهم متاعي وايد عيشة مركز سيد جبناني سهدي تذكي بيريه كشقيني جرين experience كوري سي كورديسران أو أنت خضارتي سو كاني كران سوق يو حتى دليرتي وحبرني ين practical experience هلي كران مركز إن شاء الله تذكي مد سومالي دودن داوانيسو حنكورن لها سكول كان agriculture كوا سكول كبيرها مركا وسكول عانة ووقت مركي دلكو نبضها حتى دليل بدل كسو بحين وقيمة وين دلكو ولا لها مركا هالجا ورهاي هالما الجليو سرا للسوق عليو أودي كورا
بسم الله الرحمن الرحيم. sidoo kale maantana waxaan joognaa qaybtii librariga daawada iskuulka loogu talagalay keedku ahay sida aan hore soo sheegnay qaybtan waa qaybtii labka ee ardayda baraatikada iskuulka loogu tusi jiray qolkan yar ku dhegan waxaa loogu talagalay qalabkii ama agabkii daawooyinka sida miisaanka daawada lagu cabirayo iyo chemicalka la isku daraayo halkii lagu geedin jiray waa qolkan wuxuu ku dhegan yahay qolka weyn ardayda ay fadhiistaan ee baraatikada qayb kale ayaa jirta oo iyadan aadi doono oo fasalkan ku dhegan qolkan oo kale asagana leh ayaan aadi doonaa insha allah. bismillahi rahmaani rahiim. sidoo kale waxaan mar labaad nimid qolkii labaad ee ku dheganaa qaybta librariga ee baraatikada ardayda sidaan hore sheegnay labada fasal oo baraatikada loogu talagalay mid walba wuxuu leeyahay qol yar oo daawada lagu keydiyo qolkan hadda aan joogno waa qolkii labaad ee aan nimid. sidoo kale waxaan soo deganay qaybtii hoose ee ahayd xafiiskii macallimiinta ay fadhiisan jireen oo macallin walba qalabkiisii iyo armaajadii yareed kuraastiisii khaaska u ahayd ay tiilay laakiin hadda mar dhow alaabta laga saaray. waxaan ugu dambeyntii nimid xafiiskii maamulaha ee guud ee iskuulka u lahaa runtii xafiiskan mudduu shaqeeyey intuu iskuulka jiray sidaan ogsoonahay waxaa la soo maray waqti burbur ah ee iskuulka dib loo dayactiray ilaahay khayr ha siiyo qabrigeedana waa saac ilaahay ha u dhigo maana hooyadeena maana cabdiraxmaan al ciise ayaa iskuulka dayactir xoogan ku samaysay waa kadib burburkii dowladdii dhexe burburaa dhacayo xataa dadaas ka soo degay iskuulka kor dambe dadkiiyaa markaa xoogaa dhaqaale la siiyo guri loo sameeyey iskuulkii sidii loo dayactiray iskuulka waxaa la dayactiray 2022 bisha labaad 2002 ayaa iskuulka si toos ugu furmay dayactirkiisii waxaa ka qalan jabiyey ku dhawaad 17 dufcadood oo aniga dufcadii labaad aan ka mid ahaa 2005 intaasaa ka qalan jabisay kuwaasoo ay u badan yihiin dad maanta mas-uuliyiin ah shaqeeyo haddeertaan wuu shaqaynayaa iskuulka waana sanadka 2022 ayaa yani ka shaqeysa.